waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaada aad la dhuumato markaad iskuulka sidaada ku tuko waxaad leedahay talo xagaad ku tukataa markaas laga yaabaa inaad wareegto mid yiraahdo musqusha agteeda aan ku tukanno jaranjarada hoosteeda aan ku tukanno meel aan ili kaa qaban baa daydayaysa sababtu waa maxay waxaan baad la khajilaysaa kula yeeliita waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay safkii sax ahaa inaad taagantay iyaguna kii qaldanay inay taagan yihiin inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person dhaqan ahaan aqoon ahaan waxa la baranayo wax kastaba inaad adigu tahay the right person idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin aan soran xijaabka waxa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysan inaad jiqis ka soo siiso iskuulka markaad tagaysana mid la yara modify gareeyo dhanna surwaal ka yara ah dhanna fanaanad yar ka ah meelahana aad masar yar ku duubto waa modification xijaab aad modify garaysay may ha modify garaynin sidii ugu weeye u qaado aragna you are the superior adaa ugu sarreeya dadka waayo dariiqii ilaahay jeexay baa taagantay the right way baa taagantay misaal basiitan ku siinaya saxaabadii nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu ilaa iyo laga gaadhayo china iyo indonesiya iyo waxa la mida dhulal badanoo dhulalkaa ka mida kumay furanin dagaal dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakerayeen iyo waxay basharka u keeneen waxay ku furteenoo kaaga filan rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii Persia Iran ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano waa intaan madaa'inna Ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hala wada hadlee Sa'd ibn Waqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir Ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku tala galay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpetka wada taqaan Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo Sooma taqaanin ay soo dul socdaan red carpetskaas meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan oo soo socday waxay yiraahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig wuxuu ku yidhi anigu idiinma imanay idinka ay yeedhay hubkayga ma dhigay anigoo waxayga sita haddaan rabtaan inaan u tago waa u tagay haddii kalena waa iska noqonaya boqorkii baa loo tago waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo waayo dadka kanima haddada ilaahay aaminsana way iskhiyaamaynayaan laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqmaa saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama dambaysiyo waxba khiyaameeya haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita haddii loo baahan yahay waan u tegaya boqorka waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red carpetka ahaa boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay yidhahdaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii
boqorkii markaa su-aal buu weydiiyey maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakerayaa dadkan ma gaaja waddankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wada dee waxbaa la idin siinaya iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarno dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidka waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray brofesorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigaya adigana waxaa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay waa wax faal xun waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyaddaada kumaad tahay waa inaad garataa adigu muslim baad tahay kuwa kalena waa gaalo taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa taa macnaheedu waxa weeyaan adaa ah macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan